wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland ku codsanayso in loo ansixiyo lacag laga qaado dadka dhoofaya iyo kuwa soo degayaba. mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta waxa loo qeybiyay soo jeedinay wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka ee Soomaaliland ay u soo gudbisay shirgudoonka golahaasi taas oo ujeedadiisu ahayd in golaha wakiilada uu ansixiyo $3 oo wasaaraddiisu ay ku soo rogtay dadka ka dhoofaya mudarada Hargeysa iyo Berbera iyo kuwa ka soo degayaba. fadhigan maanta gudoominaya gudoomiyaha golahaasi mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaa goobjoogka 41 mudane gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaa mudanayaasha ku wargeliyay in warqadan codsiga la hor keenay golaha warqadaasi akhriyay xogayaha guud ee golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdirasaaq Ayaale waxaana warqadaasi ay sheegaysaa oo mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland ka codsanaysaa in si xushmad iyo qadarin leh ula socodsiinaysaa in dhoofayaasha iyo soo degayaasha madaarada dalka ee shaqeeya laga qaado waqtiga $2 balse aanu doonayno inaanu ka dhigno $3 kadib markii ay istabooli waayeen dakhliga $2 baahidii adeegyada madaarada Soomaaliland awgeed. waxaa goluhu isla gartay in loo ansixiyo khidmadda $3 ee ay golaha soo hordhigtay wasaaradda duulista iyo hawada gaadiidka iyo cirka. haddaba mudanayaal waxaanu halkan idinku soo gudbinaynaa 82 nuqul si aad uga gudataan waajibaadkiina dastuuriga ah una ansixisaan. dhinaca kale war-saxaafadeed kooban oo ka soo baxay xafiiska guddiga joogtada ee golaha wakiilada ee Soomaaliland oo ku saxiixan yahay guddiga ku-xigeenka guddiga joogtada ee golaha wakiiladu Axmed Maxamed Diiriye Nacnac ayaa waxa lagu sheegay in guddiga joogtada ee golaha wakiilada ee Soomaaliland oo ku hadlaya afka golaha wakiiladu ay hambaliyo u dirayaan kulan lagaga hadlayay sidii wada shaqayn toos ah ay u yeelan lahaayeen wasaaradda maaliyadda iyo gudoomiyayaasha gobolada ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa. kulan 2 cisho uga socday Hotel Imperial ee magaalada Hargeysa ayaa ujeedadiisu ahayd sidii wada shaqayn toos ah ay u yeelan lahaayeen barsaabada gobolada Soomaaliland waxaana kulankan soo qabanqaabisay wasaaradda maaliyadda Soomaaliland. barsaabada gobolada Soomaaliland ayaa iyagu ballan qaaday in ay kaalin mugle ka qaadan doonaan hannaanka dawladnimo sida cashuur ururinta. wasiirka maaliyadda Soomaaliland injineer Maxamed Xaashi Cilmi ayaa ku booriyay barsaabada gobolada Soomaaliland in ay u diyaar garoobaan sidii ay kaalin mugle uga qaadan lahaayeen cashuur ururinta iyo nidaamka kale ee dawladnimo. wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland oo arintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri oo barsaabadu hool weyn bay ku leeyihiin horumarka dalka, rool weyn bay ku leeyihiin nabadgelyada, rool weyn bay ku leeyihiin maamul toosinta, rool weyn bay ku leeyihiin cashuur ururinta. aynu si wadajira aynu arrimaha uga shaqayno aadna waad mahadsantihiin. mid ka mid ah dadkii loo qabqabtay tuhunadii ahaa in ay xiriir la leeyihiin kooxaha ka dagaalama koonfurta dalka Soomaaliya ayaa la sii daayay waxaanu Hon Cable TV uga waramay sababta loo xidhay. warkana waxaa noo soo diray wariyahayaga Kayse Axmed Digaale. Salebaan Maxamed Xuseen oo loo yaqaan Salebaan Good kana mid ah 3 qof ee lagu qabtay howlgal ballaaran oo ciidamada amniga Soomaaliland oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan sirdoonka Ingiriiska ay ka fuliyeen gudaha magaalada Burco bartamihii bishii January ee sanadkan iyadoo lagu xidhiidhinayo ragaasi inay xidhiidh leeyihiin ururka Al-Shabaab ayaa la sii daayay toddobaadkii hore markii lagu waayay wax dambi ah ama arrimihii looga shakisanaa inay xidhiidh leeyihiin. Salebaan Good oo haatan soo gaadhay magaalada Burco oo deegaankiisu ahaa ayaa waraysi u siiyay Hon Cable TV iyo wargeyska Jamhuuriyadda kaga waramay sidii loo qabtay goobtii lagu xidhay iyo sidii loola dhaqmay muddadii uu xidhnaa. haddaba Salebaan Good oo ku waramaya sida lagu sii daayay ayaa waxa uu yiri Assalaamu alaykum warahmatullahi bismillah sideenta sida sheegtay waxba lagu yahay ayaa lagu sii daayay xabsiga intii aan ku sugnaana muddo badan ayaan weydiinay waxaan u xidhnaa aan ku lahaa balbeenaha haatay waxaan dalkayga iyo dadkayga ka galabsaday ii sheega waxbaanu baaraynaa noo sabartaasi hayeen sabray 2 bilood wax la markii hayeena alaabtaadii soo qaadin baa lagu yiri oo free waa tahay iska soco. waxa uu Salebaan Good intaasi ku daray in muddadii uu xidhnaa aan wax jirdil ah lagu samayn ama dhibaato loo geysan balse laga qaaday hidasidaha loo yaqaan DNA iyo faro kuwaas oo lagu xaqiijiyay inaan wax dambi ah lahayn.
waxaa Saleemaan ku tilmaamay ayaan daro in markasta Burco laga qabto rag wadaada oo karaamo iyo sharaf ku leh gobolka laguna eedeeyo in looga shakisan yahay inay xidhiidh leeyihiin ururka al-shabaab hase yeeshee muddo kadib markii wax lagu waayo la sii daayo waxaase arrintaasi ka habboon ayuu yidhi in baarid iyo dabagal weyn lagu sameeyo ka hor intaan la qaban waxa uu waraysigan Saleemaan Good ku sheegay in la sii daayay labadii nin ee kale ee lala qabtay habeenkaasi isagoo tilmaamay inay isugu dambeysay habeenkii la qabanayay Saleemaan Good ayaa ka mid ah dhalinyarada reer Somaliland ee qurbaha wax ku soo baratay kadibna ugu soo laabtay dhulkooda si ay uga faa'iideeyaan dadkooda aqoonta ay qurbaha ku soo barteen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa marar badan laga qabtay dad wadaada ah oo ka mid ah dadka bulshada gobolka kuwaas lagu eedeeyay ama loo aaneeyay inay xidhiidh qarsooda la leeyihiin ururka al-shabaab balse marka ay muddo xinaadaan loo soo celiyo xiriyadoodii iyadoo aan wax maxkamada la horgeyn waxaana xusid mudan in hawlgalada lagu qabanayo wadaadadaasi had iyo jeer ay noqdaan kuwa si weyn looga dareemo magaalada Burco abuurana cabsi iyo argagax badan Kays Axmed Digaale Home Cable TV Burco mas-uuliyiinta gobolka Sool ayaa ka qayb galay xaflada furitaan oo loo sameeyay arday baranaysa xirfadaha kala duwan warkana waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdiraxmaan Cali Ducaale kulan ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Sool waalidiinta iyo ganacsatada laguna furayay barnaamij xirfadeedka shaqadoon oo ay soo qaban qaabiyeen ururka maxalliga Levo ayaa maanta lagu qabtay hotel kulan oo ku yaala magaalada Laascaanood waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay Sheekh Saciid Axmed Cadar oo soo dhaweeyay sida ay dhalinyartu ugu baahan tahay in la baro xirfadaha kala duwan si ay ugu shaqo tagaan Cabdiqani Maxamuud Jiile oo ah gudoomiyaha ururka Levo ayaa isna ka warbixiyay tirada ardayda ay barayaan xirfadaha isagoo sheegay in ilaa 550 arday la barayo farsamada korontada baabuurta iyo waliba barashada kombiyuutarka isla markaana uu ku rajo weyn yahay inay ka soo baxaan arday ka faa'iideysata isduwaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sool ayaa isna ka hadlay kaalinta xirfaduhu u leeyihiin ardayda iyo dhalinyarada isagoo ku booriyay inay ka faa'iideystaan barnaamijkan Leela Maqtal oo ka mid ah shaqaalaha EDC ee gobolka Sool ayaa iyadana ka warbixisay in barnaamijkan uu yahay kii labaad ee laga fuliyo gobolka isla markaana ay ka faa'iideysan doonaan ilaa 220 arday oo ka qayb ah barnaamij